بري هدي بيدمو أيا فدقي يجوه ري قلها عصبة وكيلة دي لصوت دورتي هل كان وكفر بالدونا ومركي يجوه ريسيح اللي بعد نضل لصوت دورتي أي مادان أقل قلها وكيلة دي كشقين دونا شركة يجوه ري وحفر الدونا قدوميها محكمة السرقة أو هل كان سكر دارين دونا حبناها قلها وكيلة مركي يجوه ريسين ودارين دونا مسؤولية ده أي قادين قدوميها دارين تكدب مركا وداريو وحا هوش اللي وريجيا سيدا وشرع وشيجيو qofka ugu da'wada weyn golaha xubnaha la soo doortay oo uu soo xuli doono gudoomiyaha maxkamadda sare waxana way xubinkaasi uu gudoomin doonaa shirka ama fadhiga lagu dooranayo mas'uuliyiinta shir gudoonka oo noqon doona golaha wakiilada waxa tartami doona saddex xubnood oo ka socda xisbiyada mucaaradka ee isbahaystay iyo saddex xubnood oo ka socda xisbiga xaakimka ee dawladda oo kala tartamaya saddexda joog ee kala ah gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad marka ugu horeysa marka goluhu wuxuu gacantaag ugu codeyn doonaa gudoomiyaha iyadoo oo codeeri ay ku kala badin doonaan labada xubnood ee u kala tartamaya mucaaradka iyo muxaafidku xubinta markaasi guuleysata ayaa la wareegi doonta shir gudoonka oo kursigaasi fadhiisan doonta oo xubintii da'da weyneed waxay ku soo biiri doontaa xubnaha sida uu xeer ku dhigayo waxaana markaa fadhiga gudoomin doona gudoomiyaha cusub ee la doortay doorashaduna halkaas ay ka sii socon doontaa oo waxa la dooran doonaa labada xubnood ee kale ee harsan ee ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo ka labaad marka berri waa maalin si weyn loo sugayay halkan ayaa la isugu iman doonaa marti sharaf kalena way iman doontaa hawshana saasi u qabsoomi doontaa xisbiyadii loolanka adag ku soo jirayna berri bay kala calaf qaadi doonaan